الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد برنامج كينا دعوة يمكن الله ما أنت واحد نكهض لنا دعوة هذا لا يابضن ودعوة هنتي مدهد اللي قد شوقه لكن هنتي قيمة قارة له واحد كسر بسنتهاي إن هذا إن عانوا أها ومقعيس الأورنجري أرنولد فان الأورنجري oo dalka Holland u dhashay ayaa waxa uu ahaa ninkii sameeyay ama hormoodkii filimkii aadka u galgalay caalamka islaamka filimkii la oran jiray fitna ee runtii lagu aflagaadeeyay rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ilaahay naxariis korkiisa ahaatee isagoo wax kasta ka bariya filimkaasi ninkii hormoodka ka sameyntiisa ee sameeyay ayay qisadeena ku saabsan tahay ninkaasi Arnold van wuxuu ka tirsanaan jiray xisbigii la oran jiray Freedom Party oo ahaa runtii xisbiyada aadka uga soo horjeeda ama aad u la colaytama muslimiinta isagoo ka tirsanaa madaxda ugu sareysa ninkaasi waqtiga hore waxa uu sameeyay فيلم runtii lagu aflagaadinayo rasuulullaahi Muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi filimkaasi markuu sameeyay filimkaasi aad buu caalamka islaamka u gilgilay aad baan runtii dadka dhigooda u dhaqaajiyay aad baan laga xumaaday ninkaasi muddo kadib isaga ayaa ka sheekaynayay waxa uu yiri waxa markiiba aan isweydiiyay yacni intaas oo milyan oo qof inay filimka noocaas aadka uga xanaaqaan oo runtii ka soo horjeestaan waxba sabab u ah buu yiri waxa isweydiiyay buu yiri oo fikradeeda ku soo dhacay war malaha warkii aad adigu haysay macluumaadkii aad haysay ee islaamka ku saabsanaa malaha sax maaha waxa uu isagu sheegay inuu runtii macluumaad badan oo qaldan islaamka ka haystay runtii aadna u nacba islaamka iyo wixii runtii muxuu ahaa la halmaala taasina ay keentay ay ku kalaftay filimka noocaas inuu sameeyo laakiin filimka ka bacdi waxa uu isweydiiyay su'aalo badan waxa uu isweydiiyay yacni dadka muslimiinta ah oo nambarkooda aad u badan yahay difaac ay u sameeyeen rasuulullaahi Muhammad adu markii dambe waxa ku dhalatay bal inuu macluumaad kala raadiyo taasi waxay keentay in runtii lagu dhiirigeliyo inuu soo booqdo masaajid kamid masaajida ku yaala dalka Holland isagoo in badan ka biyadiidana masaajidka inuu soo booqdo ayuu aakhirkii masaajidkii soo booqday masaajidkii markuu soo booqday وحيري وين بس كي بدلي وحيري وحن فيلاي dadkii aan wax ka sheegay diintooda dadkii aan runtii aan aflagaaday rasuulkooda waxaan ka filayaa inay runtii suxun ay la dhaqmaan inay si cadala ila hadlaan laakiin sameey dhacin buu yiri masaajidkii marka aan tagay waa la soo dhaweeyay waliba aad baa la soo dhaweeyay bale runtii koofa iyo qaxwa la siiyay si fiican waa la ila hadlay arrintaasi wuxuu isbedel la yaab la igu sameeyay markaan ka tagay masaajidkii aan ka noqday ee gurigayga ku noqday su'aalo badan baa maskaxda ku soo kordhay waxaan isweydiiyay war dadkii aad wax ka sheegtay ee diintooda aad wax ka sheegtay waa maxay haddana soo kuwa ku soo dhaweeyay taasi waxay ugu abuurtay in fikradihii aan ka haystay muslimiintu fikradihii markii hore muslimiinta aan ka haystay in aanay sax ahayn in dhici karto ayaa igu soo dhacday laakiin haddana maskaxdayda waxaan galiyay war malaha masaajidka marka aad tagtay ayaa maskaxdaada la soo dhaqay marka masaajidka ha ku noqonin masaajidka dib ha ugu noqonin waxa arintaasan go'aansaday laakiin maxaa dhacay buu yiri haddana laba week kadib buu yiri masaajidkii waan ku noqday laba week kadib marka masaajidka ku noqdayna
macluumaad fara badan iyo aqoon badan oo islaamka ku saabsan ayaa la isoo siiyey oo runtii laygala soo hadlay. waan soo noqday buu yidhi, naftayda iyadoo markaas ay leedahay masaajidka ha tegin, waxaa laga yaabaa maskaxdaada inay bedelaan, waxyaala badan baa igu soo dhacaya. waxaa kaloo aan runtii isku qancinayn oo naftayda aan ku lahaa maskaxdaada tashuushaadkan ay ku fureen ka saar. laakiinse maxaa dhacay buu yidhi, mar kasta waxaalihii aan ka wada hadallay islaamka ku saabsanaa mar kasta maskaxda ay ku soo dhacaan. mar kasta waxay noqotaa inaan ka fikiro islaamkii, maskaxdeeda waan ka saari kari waaye. waxyaala badanoo islaamka ku saabsan oo masaajidkii aan soo boqday igala hadleen oo ii sheegeen, maskaxda waan ka saari kari waaye. anigoo haddana ku dadaalayay oo nafteyda ku lahaa ha islaamin, nimankan ha u tegin, haddana wuxuu yidhi waxay noqotay waxaanan runtii anigu awoodin oo markasta maskaxdeeda ku soo dhaca ayaa noqotay. aduu mar dambe masaajidka ku noqday. markii aan ku noqday buu yidhi waxa laysoo siiyey kutub ayaa laysoo siiyey, kitaabkii qur-aankaabaa laysoo siiyey, kitaabkii qur-aankaabaan akhriyey, kutubtii baan akhriyey. wuxuu yidhi isbeddel baan arkay buu yidhi. isbeddelka ugu muhiimsanee haddana han sii arkay waxa aha buu yidhi markii la isoo siiyey kitaab yaroo ka sheekaynaya siirada rasuulka iyo rasuulku siduu u noolaa. arrintaas aad bay ii beddeshay buu yidhi. dhacdooyinka la yaab kale i beddelay waxaa ka mida buu yidhi rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam markii uu soo galay, markii uu furtay maka ee kacbada uu soo galay, waa kii cafiyey dadkii gaalada ahaa, waa kii kelmadda layaabka la yidhi rasuulullaahi moxamed ee ah iska taga, idhabuu fa antum mutlaqaa, iska taga muxuu ahaayey waad fasaxaan tihiine. oo waa kii waxa dadkii dhibay ee dhibta soo gaadhsiiyey waa kii iska cafiyey rasuulku. wuxuu yidhi arrintaasi waxay igu abuurtay saamayn la yaab leh. sababtu waxay tahay buu yidhi anigoo marka hore aaminsanaa fikrada qaldan ka aaminsanaa islaamka, oo islaamku inuu dadka muxuu ahaaye dee uu cadow leeyahay ka aaminsanaa, haddana markaan arkay rasuulkii moxamed ahaa sal slam ee la dhibay, ee gurigiisa laga saaray, ee asxaabtiisa la cadaabay, ee dhibta badan loo geystay, dadkii dhibta u geystay markuu gacanta ku dhigay inuu yidhi iska taga waan id cafiyee, arrintaasi isbeddel layaab laygu samayso. wuxuu yidhi muddo waxaan sii akhriyaba qur-aankii iyo axaadiistii, waxay noqotay buu yidhi ugu dambayntii inaan ku qanco oo naftayda ay aaminto inuu ilaahay keligii yahay, rasuulullaahi moxamedna uu yahay rasuulka xaqa ah ee ilaahay soo diray. taasi waxay keentay buu yidhi inaan ku dhawaaqo shahaadadii. laakiin shahaadada halkan kaga dhawaaqay buu yidhi twitterkan kaga dhawaaqay buu yidhi twitterkan kusoo qoray ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah. muddo ka bacdi arnood waxa uu sameeyey, wuxuu tegay xajka, ayuu tegay kacbada, ayuu soo booqday madiinuu soo booqday, qabrigii rasuulka ayuu soo booqday, roodadiibu ayuu dhexgalu dul istaagay. roodadii marka uu galay wuxuu waan ooyay buu yidhi, waan isqaban kari waaye. yacni rasuulullaahi moxamed uu shalay toole filinka aadka u xun ka sameeyey ayuu maanta haddana isiga rumeeyey oo iimaankii ilaahay subxaana wa tacaala uu soo geliyey. isbeddelka la yaabkaa leh waa runtii wax la yaaba weeyaan. yacni islaamku qiimihiisu waxau ninkii shalay necbaa islaamka maanta marka uu soo galo dembiga wax alla wuxuu hore u sameeyey waa laga cafinaya, beej cusub baa loo bilaabaya. waana waxyaalaha wanaagga uu islaamku runtii uu leeyahay. wuxuu yidhi halkiibaa aan ku ballan qaaday buu yidhi maray wareysanaysa jirada cukaad ee sacuudiga ka soo baxda ay wareysi ka qaaday, waxa uu ku ballan qaaday bartaa sida uu filinkii xumaa u sameeyey inuu filin dambe wanaagsan oo ku saabsan rasuulka uu samayn doono, inuu wax badan ka bedeli doono wuxuu hore u sameeyey, inuu isku dayi doono diinta ilaahay inuu faafiyo. arrin badan noocaas u ballan qaaday. daawada qisadana waxa ay tilmaamaysaa islaamku runtii la yaabkuu leeyahay iyo macaankiisa qofu markuu dhadhamiyo kama go-aayo. shalay toole ninkii cadowga ahaa, shalay toole ninkii rasuulka necbaa, maanta markuu xaqiiqadii taabtay ilaahayna iimaankii uu qalbigiisa geliyey, waa kaa isbeddelkaa layaab kale ku dhacay. intaasaan kusoo koobaynaa. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.